laakiin ilmaha badana waxaa kufsado dadka ehelka u ah dadka dariska u ah dadka qaraabada kore ah ta kale oo muhiimka naasiro oo absolutely gabdhaha Soomaaliyeed inaa u sheega aan rabo waxa waan anaka badana ama gudaha ha joogto ama dibadda ha joogto furiinka anagu badan baryahan ilma oo hooyada la dhacayso la kufufaysa kaligeed anagu badan hooyadii waxay sameynaysaa nin kasta oo Soomaaliya ilmihii waxay dhahay abti waaye no qalad waaye nimanka aan ilmaha waxba u ahayn ee qaraaba qansaxa ah oo aa ilmihiina dhahaysiin abtigiin waaye adeer ma dhahayso because ninkii u xanaaqsan tahay soo adeer ma dhahayso ma fahamtay adeer ma dhahayso abti waaye aad dhahaysiin ka dhaadhacsiinaysiin hebel salaan oo aad إلى المهم آمنو أدو حرير آمنة أدو حبوريسين نين هذا أدوكو بجرنين نين أخلاق دي سوسدا أيتها كداية المه أرنتا ولي بدمر كيكوسعتا رجع بدنا ما سميان نمانكو بدنا ما سميان دمر كأسميو هو ينو كدافع المها أشجع قفنا إننا آمنين no one to trust قفنا إننا آمنين هداد أود عنقاق وحج عليها بليس أوقت لعقت المها هكا عنقبتيننا وحج عليها أوقت ماله جعليها بليس جاي سي آن هدو لعق إيه نعنعي وحن جر اللوغوس الصبين وروحا أركيسا الماء ردن أو كبهيسن أو وحبهيسن أو يروب كنول لعقنا هو يديس أيكو قادته ولعقت سي أما أيوتو كجرتو أما مالك لأدريس أما مالك لقدارنيسو وارن وباهيرdu waa badan tahay laakiin ilmahaaga lacagtooda ku bixi ayaka ku bixi aaminaadna ha u abuurin adeera kana adeera iyo kana eeda iyo tana waxa biliis iska dhaafa ha ilmihiina ha ka dhaadhacsiinina strangerska inay adeera u yihiin inay abti u yihiin ha ka dhaadhacsiinina si cunugu u foojignaado ilmaha bara qof aanay garanayn inayna raacin qof aanay garanayn inaanan waxa ahayn in adiga bas hadaa single mother ta aniga bas wax ku adheecunuga aniga bas wax ku ah if I die hadaa aniga dhinto ka dardaaran inta nooshahay ka dardaaran cunuga aabihiis si kasto isku dagaashin aabihiis waay wil aqore waxa qore wax wil la dhahay dardaaran wil waxa waay af ingiriisi wilkaas waxa tagaysaa qaarkood raqiis waa $100 ka yar jooga ama $100 ka yar wiilkaasa qoraysa waxa qoraysa ilmahayga hadaan dhinto waalidkay hala siiyo ama walaalkay hebel hala siiyo ama odagay hala siiyo aabaha ilmaha dhalay si kasto idinku iskugu xumaatiin ilmaha asaa kula dhalay hadaa aniga dhinto ilmahayga waa in aabahood aadaan aabaha hadii la heli waayo ama uu asagana dhinto ka bacdi ayaa ani walaalahay iyo mudanayaan laakiin ilmaha toosiya si dardaarma social services حتى هذا ilmaha iska qaata waxyaabaha keenayo oo waalidka waxa waaye ilmi waalidkii uma sameeyna waraa maalin kasta ma noolaanaysta adiga waxa la yircolka digtiin qab nabadu kuma dishay ka sii dardaaran ilmaha maalintan dardaaran qoray aniga waxa ka soo wareegtay baan u maleynayaa 13 sano ka hor ani dardaarankayga qoray ilaa haddana waan noolahay ilaahay naftu igama qaadin yurubaan jooga dardaarankayga waa qoray aniga if I die ilmahayga meesha la geynayo waxa ay mudanayaan hanti haddaan ka tagay waa yaraata ha badnaato qalab waxaan ka tagay cid la siinaayo cid geerideeda la ogeysiinayo next of kin waxa soo dhan laga fikra loo baahan laakiin inta jaq qabyaalad ku maqantiin ilmaha yaa la idinka dhameeyay ilmahana u sheega strangers wax inoo noo ahayn war ana adeerka hadoo yaa adiga kula dhasho waa adeer waa abtiga hadhihin waxa la ninka relative anna that's it waa dhamad relative anna ya relative ayaan nahay waxana hooyo qaraabaan nahay qaraabo kore aan nahay ani asaa qaraaba hebel salaan iyo hebel kayaan iyo haba u dhihinba si ilmahaaga ay u ogaadaan who they related cidda iyo ka xiriir ay la leeyihiin cidda ehel u ah sayna ehel kasta u raacay war gabdhaha xataa gudaha joogo waa dhamaata Soomaalida markii la is aamini jiray oo ninka jidka socdaan wallahi adeerna la dhihi jiray magaciisa Naasiro ninka jidka socda adeerna la dhihi jiray aan dhihi jirnay adeer nimanka jidka socdaan oo islaamada dhihi jirnay aniga hadii iskoolka soo baxno oo is dagaalno ummadas Ilaahayna kala celin jirtay hada waxaas ma jiraan iimaankii bay dadka ka bixeen islaamnimada ma yaqaanaan ilmihiina xataa hadaa wadanka joogtaan oo sheega wixii ehel inaan ehel ahayn ehel maaha adiga dhalay iyo aabaha that's it waa dhamaat